السلام عليكم. قيبتين اللبات integral دي حسوستي قاعدة استعمالنا waxay ahayd haddaad dhahdid integral x oo la kordhiga n ama na dx waxay la mid tahay hal loo qaybiyey hal lagu daray na lagu daray hal x lagu daray hal oo okay marka maxaa ka wadaa caynkan waxaa ka wadaa macnaha haddii aad tiro derivative ku samaysid aad gadaal u noqonaysid ma ogaan kartid macnaha tirada sababtay tahay horena u sheegay okay qaacidada saan waaye hadalkaa yareena example waxaa lagu dhahay integral ku sameey functionka waxaa haysataa x lagu daray x square lagu daray x to third dx ka shaqeeyo maxaa sameynaya inta bilowga aanu ku degdegin waxaa fiican waxaa xaq u leenahay inaan kala qaadqaadno sababtay tahay waxaan isku dardarsan yihin marka waxaan dhihi karnaa taasi waxay la mid tahay integral x dx lagu daray integral x square dx lagu daray integral x oo saddexa kordhigay x okay hoosii kor waa isku mid kabacdi maxaa sameynaa kabacdi waxaa sameynaynaa waxaa isticmaalaynaa qaacidadeena ahayd haddii aad dhahdeed okay qaacidadana madaxa ku qabanayna tan okay integral x dx anakoo kan isticmaalayno kan koowaad tirada kor ku qoran waa maxay waxba laakiin hal ku qoran hal ku hoos duugan because x oo hal kordhiga waa x soma okay marka waxaa sameynaynaa marka waxay la mid tahay integral x dx waxay la mid tahay x waxay la mid tahay adigoo dhahay hal loo qaybiyey hal lagu daray hal x hal lagu daray hal maadaama na'da ee halta jawaabta ku soo baxda waxaa waaye hal loo qaybiyey labo x lagu daray labo cayn aan ku darseena okay taasi waa dhammaanay tan labaad waa maxay integraalka kalena waxaa waaye integral x square dx waxay la mid tahay anakoo qaacidadan isticmaalayno markaan waxaa haysanaa na'da waxay la mid tahay labo waxaan leeyahay hal loo qaybiyey labo lagu daray hal x labo lagu daray hal waxay la mid tahay hal loo qaybiyey saddex x oo saddexa kordhigay lagu daray cayn okay xisaab ahaan insaan loo qoro maaha bas caynkan intuu ku jira laakiin waxaa fududeynayna okay muhiimadda waa fahanka saddexaad waxaa waayay
hadaad dhahdid integral x oo 3 la kordhigay dx haddoo ila fahamtay na'da waa 3 hal loo qaybiyey 3 lagu daray hal x 3 lagu daray hal lagu daray hadhihi isku meesha hal loo qaybiyey 4 x oo 4 la kordhigay lagu daray cayn okay jawaabta oo guud maxay noqonaa jawaabta guud waxay noqonaa adigoo waxaan isku wada marka su'aasheena waxay ahayd saan integral x lagu daray x oo 2 la kordhigay lagu daray x oo 3 la kordhigay dx waxay la mid tahay hal loo qaybiyey 2 x square lagu daray hal loo qaybiyey 3 x oo 3 la kordhigay lagu daray hal loo qaybiyey 4 x oo 4 la kordhigay iyo constant aan gadaal ka raacsiinayn okay jawaabta koowaad tan labaad tan saddexaad oo lagu daray cayn marka waa ila yaabantiin dalla yaabtay sababta cayn keliya meeshaan ugu soo qaatay aan u soo qaadan saddex cayn waa kow 2 iyo 3 sababta tahay 3 lagu dhufta cayn 3 cayn waxay la mid tahay cayn waa 3 oo lagu dhufta constant waa sila constantiga because ma ogid tiradan constantiga waxay tahay mar walba markaa constant aan dhaho waxay la mid tahay ingiriis ahaan constant waa maxay waxa waayay waa tiro caadi waa tiro aan isbeddelin waa tiro caadi 1 2 3 4 ilaa iyo milyan ama infinity sababtay tahay hore waxaan dhahay haddii aad dhahdid 2 ama 1 derivative haddaad ku samaysid waa eber hadaad dhahdid 2 derivative haddaad ku samaysid waa eber maaha haddii okay 3 derivative haddaad ku samaysidna waa eber marka integral aad ka shaqaynaysid intana aad ku haysatid marka waxaa rabtaa inaad intasaan u aadid inaad integral ka tagtid waxaa rabtaa inaad inta ka tagtid inta ogaad bas jawaabta ku soo baxday inta waa eber inta waa eber intana waa eber waana tirooyin kala duwan waa 1 waa 2 waa 3 marka su'aasha waxay tahay saa ku ogaa karnaa halkan saa ku ogaa karnaa labadan saa ku ogaa karnaa saddexdan ma ogaa kartid sababtaas aw dhahee marka eber integral ku samaysid dx markaad dhahdid waa c waa constant because ma ogid tiradan caynka waxay noqon kartaa tiro walba waa 1 waa 2 waa 3 4 boqol milyan negative boqol negative milyan waxay rabtay noqon kartaa marka sababtaasaa loo soo koobay cayn marka tiradan sida lagu helo waa marka integralka dhamaysid wax la dhahayo differential equation marka taasaa ku heli karnaa caynka laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa basic marka waxaan u malaynayaa inaan halaan ku joojinaa bilaahi tawfiiq waxaana ku mahadsantihiin daawashadii